faahfaahin ka soo baxaya dagaal xoogan oo ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada dawladda oo gacanta ku soo dhigay rag iyo waxyaabaha qarxa kadib howlgal ay ka sameeyeen degmada Waabari ee gobolka Banaadir. taliyaha ciidanka xoogga dalka oo shacabka ku amray inay ka guuraan guryaha ay lahaayeen ciidanka militariga Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo kala diray maamulka gobolka Hiiraan magacaabana mas'uuliyiin cusub. kooxo ku hubeysan baastoolada oo maanta suuq bacaad ku dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda. ciidamada maamulka Puntland dhaqdhaqaaq ciidan ayay waxay ka bilaabeen dhulka buuraleyda ah ee galgale ee gobolka Bari. maamulka degmada Kaxda oo sheegay in ciidamo hubeysan ay dhibaato ku hayaan shacabka ku nool degmadaasi. ciidamada Mareykanka oo caawimaad ka geysanaya go'doonka magaalada Maraawi. iyo ciidamada Syria oo markii ugu horeysay cagta dhigay ciidda Ciraaq. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad. intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweyn imikana ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan wadajir waxaan kugu waramaya duhurkan Burhaan Diini Farax iyo aniga Xawluul Cubayd taariikhduna waa 10ka bisha 6aad sanada 2017 ku soo dhawaada dhageystayaal warkii fidsan faahfaahinna ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal u dhaxeeya dagaal xoog leh oo ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka Jannaale la yiraahdo dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyaa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay waxaanu ka wareysanay wariyaheena gobolka Shabeellada Hoose inooga soo warramay Saciid Ra'iis Cali gobolka Shabeellada Hoose maanta waxa ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa midowga Afrika amisom ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwa midowga Afrika amisom garabsanaya ayaa duulaan colaadeed oo ay ku qaadeen deegaano dhowr ah oo shabaabku ay ka maamulayeen gobolkan gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada Awdeegle iyo deegaanka Jannaale oo shabaabku ay ku xooganayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa amisom dagaal kooban kadib waxa uu soo gashay inay la wareegaan deegaanada Bariire iyo Malable Sabiid iyo Caanoole oo ka wada tirsan deegaankan Awdeegle ama degmada Awdeegle sidoo kale ciidanka xoogga dalka waxa ay galeen oo laba jiha ay ka galeen deegaanka Jannaale oo ay ku xooganayeen Al-Shabaab ciidanka dawladda gaar ahaan kuwa xoogga dalka ayaa dagaal culus waxa ay Al-Shabaab kula galeen deegaanka Jannaale kadib markii Al-Shabaab dhowr bilood ka hor ay jareen buundadii deegaanka Jannaale loo geli lahaa ama laga mari lahaa dagaal xooggan ayaa halka ka dhacay madaafiic ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan warar madax banaan oo aan labada dhinac ka helayno waxa ay xaqiijinayaan in khasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalkaasi oo soo kala gaaray Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hase ahaatee xaqiiqada warkaasi iyo tirada dhimashada dhaawac labada dhinac lama hayo sidoo kale dadka deegaanku waxa ay muujinayaan baqdin xooggan maadaama dagaalku ah mid aad u xooganaa ciidamada dawladda ayaana hadda ku sugan deegaanadii lagu dagaalamay maanta oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose haye marka Saciid ma ognahay wax khasaare ah oo shacabka soo gaaray maadaama dagaal culus uu ka dhacay deegaankaas Jannaale علي وقصار وأجرا إن كستو تركوب جود هذا عن لين لكن ده كسوان دجان كجنا على ودجال هذا كل صعنا يو حقيقين إلا يدور يو تموقفات ضوعة يو ترشن كبدن أو لمشاء أو ضد شعبه أو كواس أو مناسير يقولوا ده وقتين يرساس تحوجه لابد نعيش ويدرسنا يعني علي واحد جرا sidoo kale khasaarooyin soo gaaray dhinacyada dagaalamaya sidoo kale waxa jira khasaarooyin ka dhashay dagaaladii ka dhacay dhinacan Bariire iyo Mubarak iyo Toortoor xageeda oo hadda saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo la hadlay warqadka idaacadda kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose ay waxa xaqiijiyeen in ay hadda dagaalku ugu xoogan oo ka soconayo meel ku dhow deegaanka Toortoor oo shabaabku ay aad ugu xoogan yihiin ciidamada dawladda ayaa gacanta ku soo dhigay rag iyo walxaha qarxa kadib howlgalla ay ka sameeyeen degmada Waabari ee gobolka Banaadir Cabdiwahaab Xuseen Muxiidiin ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada isku dhafka ee loogu talagalay xasilinta amniga magaalada caasimadda Muqdisho ayaa maanta waxay howlgallo ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir howlgallada ayaa ciidamadu maanta waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Waabari ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in howlgalka ciidamadu ay sameeyeen ay hub sharci darro iyo sidoo kale rag hubkaasi wata ay ku soo qabteen
saraakiil ka tirsan ciidamada xasilinta caasimadda oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ma aysan inoo suurtagelin inaan ka waraysano waxyaabaha ay ciidamada xasilinta caasimadda ay maanta ka soo qabteen degmada Waaberi ee gobolka Banaadir balse dad goobjoogayaal ayaa lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyay amaba noo sheegeen ciidamada xasilinta caasimadda ay maanta howlgalla ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada Waaberi ee gobolka Banaadir isla markaana hub sharci darro iyo raggii wata ay ku soo qabteen maalmihii ugu dambeeyay ciidamada isku dhafka ee isku jira military police iyo nabad sugida ayaa waxay howlgallo ka sameynayeen guud ahaanba degmooyinka gobolka Banaadir howlgalladaas oo lagu soo qabanayay ragga hubka sharci darrada ku dhex watay sidoo kale kooxaha falalka amni darrada ka geysta gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo ciidamadu inta badan markay howlgallada sameynayaan ee isku dhacyo kala kulmaan meelaha ay howlgallada ka sameynayaan. Cabdulhamid taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shacabka waxa uu ku amray inay ka guuraan guryaha ay leeyihiin ciidanka militariga ah ee ku yaala magaalada Muqdisho waqti kooban ayuu u qabtay warkan waxa inoo faahfaahinaya wariyaheena Sayid Cali Sheekh Maxamed محمد أحمد جمعالي عرفيد تليها عيدن كحوكا دلكا ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Muqdisho ugu baaqay inay ka baxaan guryaha ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka taliyaha ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dad degan guryaha ay lahaayeen ciidanka xoogga iyo kuwa kale oo gareystay ummadda Soomaaliyeed qaas ahaan ummadda degan magaalada Muqdisho waxaan ogeysiiyo in deegaanadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dad badan oo shacab ay iska degan yihiin qaarkood ay kireysteen kirada ka qaataan qaarkood ay danahooda u isticmaalaan waxaan rabaa in ogeysiiyo in la badneeyo deegaanadii iyo guryihii xoogga dalka Soomaaliyeed guryahaas fara badan waa in la badneeyo guryahaas laga baxo guryo fara badan waaye degmooyin fara badan ku yaala dadaa iska haysta dadaa iska isticmaala wadamahooda ee gaarka ah u isticmaala marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha inay baneeyaan guryihii xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta oo ku yaala hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa la ogeyn sida uu dhaqan kali karo ayadoo ay jiraan dad badan oo shacab ah oo degan guriyihii lahaayeen ciidanka xoogga dalka madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa kala diray maamulkii gobolka Hiiraan isagoo magacaabay mas'uuliyiin cusub wariyeena Maxamed Cabdi Saney oo Hiiraan jooga ayaa warkan ka wareysanay كنت ورئيسة بعد حديث مدحونا مع مقابلات كيرشة على عبد الله عصمنا يا حلك اللي وقع ذي المسؤولين كانوا يسلموا قبل كهيران وكل يعيد الدنيا قبل علي جيت عثمان وحنا الدنيا قبل كهيران لا مقع ذي عمر هذا نجاهي دادي والله يقان تيقو وحرق أصلا مغيدوك مجالة بلدين وحنا سبوا كلا حتى قايس لجسم يسوع اللي يشيء الدنيا بلدين محمد أحمد إبراهيم صوب عطية الدنيا سعيان قبل كهيران دمع عمي سياسة أحمد عبد الله إيدي وحنا لو مقعد السير اللي يشيء الدنيا سعيان قبل كهيران عمي سياسة أمين لكم مقعده مطلع عثمان وكمل بدي دورشين كما مدير Hirshabelle أي marka sababta xilka qaadista ugu sameeyay madaxweynaha maamulkaasi ma la sheega ilaa hadda lama sheegin laakiin deynta ugu dambeeyay waxa soo baxay warar la dhaxmaray oo ku saabsan in xilka qaadis lagu sameeyo xubnaha ugu sareeya ee maamulka gobolka Hiiraan waxaana ka warqabtaa in dhawaan wasiirka maamulka Hirshabelle iyo magaalada Beledweyne kuwaas oo kulamada sare oo tashiya la qaatay shaqada kala duwan ee bulshada dhawaan magaalada Muqdisho looga yeeray ninka hadda loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Cumar Aadan Ibraahim Baadi oo ahaa duqay magaalada Beledweyne wariyaheena Maxamed Cabdi Saney oo Beledweyne jooga ayuu codkaasna ahaa oo aan ka wareysanaynay arrinta ku saabsan madaxweynaha Hirshabelle oo kala diray maamulka gobolka Hiiraan maamul cusubna magacaabay magaalada Muqdisho hadaan dib ugu soo laabanaa dablay hubeysnaa oo baskoolada watay ayaa suuqa labaad ugu weyn magaalada Muqdisho ee suuq bacaad waxay maanta ku dileen askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya markaan waxaa noo faahfaahinaysa wariyaheena Maryama Cabdulle Xasan kooxo ku hubeysan baaskoolada ayaa waxaa goordhow ay ku dileen nin ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir gaar ahaan suuqa labaad ee ugu weyn Soomaaliya ee suuq bacaad ragga dilka geesta ayaa la sheegay inay isaga baxsadeen goobta uu dilkaasi ka dhacay dhanka kale ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa soo gaaray goobta uu shilku ka dhacay iyagoona halkaasi ka wada baaritaan ku aadan sida ay wax u dhaceen
sidaasi waxaa inoo xaqiijiyey goobjoogo ku sugan halka uu shilkaasi ka dhacay oo la soo xiriiray idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho. dilku ka dhacay degmada Yaaqshiid meesha gaar ahaan Suuqbacaad dhexdeeda ciidan waaye ciidanka oo ka tirsan yahay wuxuu qaadi jiray canshuurta oo qaabilsanaa jiray suuqa dhexdiisa lagu dilay. والله رجع دلي لما يقال لك ركوب يصنع عين وحلال وحي لبن لي بدري لا تقدم بيقف مطرح دول كيف بعد سيد اللي يقول قينا وعيدا ما ضاي يمري وضق باريتان وحصل في كور ولا ماشي واسك عادي وسيد اللي يقول قينا بعد يجدين لو ماشي كذا عيدا ما تصير سوق المجرى أنا يستفيد من marka waxa meesha ka qaadi jiray canshuur marka dadku inuu basta amal iska dhigay sidoo uu ilaalin jiray uu si ilaalin waaw ismay oo qoradiisa ma dhiga jirin balanka qoradiisa ma ka qaadanin oo ninka Xasan Xamiid oo dhaninka si kastaba xaaladda ayaa ah mid degan kadib markii halkaasi lagu dilay mid ka mid ah askarta ciidamada dowladda Soomaaliya. waa mahadsantahay Maryan. ciidamada Puntland ayaa dhaqdhaqaaq ciidan waxa ay ka bilaabeen buuraleyda galgala ee gobolka Bari. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya. ka tirsan maamulka Puntland ayaa lagu soo waramayaa in dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan deegaano hoos yimaada buuraleyda galgala iyo tuulada Afur oo maalin ka hor al-shabaab ay ku weerareen ciidanka daraawiishta Puntland. howlgaladan oo ah kuwa ciidanka ay ku baadgoobayaan al-shabaab ayaa waxa horkacaya saraakiisha ugu sarsareysay ciidanka Puntland iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland sida ay sheegayaan ila wareediyo deegaanka Afur ku sugan. saraakiishan ka tirsan maamulka Puntland ayaa u sheegay idaacadda kulmiye in dhaqdhaqaaqyadan ciidan ay maanta ka bilaabeen deegaano badan oo ka tirsan maamulka Puntland inuu yahay mid looga hortagayo weerar kasta oo ka yimaada al-shabaab. shalay ayaa waxaa buuraha galgala ka dhacay duqeyn ciidanka Puntland ay ka fuliyeen godad la rumaysan yahay inay ku sugan yihiin qaar ka mid ah al-shabaabkii dhawaan weerarka ku soo qaaday deegaanka Afur. maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay in ciidamo hubaysan ay dhibaato ku hayaan dadka shacabka ah ee barakac ahaanta u degan degmadaasi xeryaha barakacayaasha ee ku yaala. warkaan waxa inoo faahfaahinaya wariyaheenna Maxamed Bootaan Yuusuf. عياش كنا المجال مقدسة ولا دلنا داعية هلتانك وحيابة قطان نلشوا أي وجهي عبسي حلقان أو كجي إيمانية بعده بيسنا ودعوا جيسنية كواس وقلية كامون يكونوا لهين دقمة كهذا يا بعده بيسنا وحكي جيستين دع سدح كام وكيالو دقمة داسي قدمنا كقاتين دتك دقنا ألابتي أتي لقاركوت قدومية دقمة كهذا إسماعيل محمد عبد الله أو ورئيس جارسي إذا عد كل مية أي وحول شيء إن سدح ذي هبين يقدم بيسي بعده بيسنا قلية سدح كام إن كقاتين دتك دقنا راشين دي معاونة هستين iyo alaabo kale uu yeelay dhibaatooyin dad hubaysan ay ku hayaanba way jirtaayo habeenkii wasaqda dhax markay tahay dad hubaysan oo waxa uu soo galaya meel ay ka yibdeen aan la garanaynin oo laga yaabo inay maaragtay ay dana gaar ah inay ka fushadaan doonaya oo habeenkii dhibaato ku hayaa yimaada way jiraan dadkaana annaga iyaga dagaal baa naga dhaxeeyo oo mar walba saacad walba waa dhibaatada ay geystaan annaguna waa uun ku daba taaganahay saddexdii habeen ugu dambeysay saddex kaam oo la soo galay oo midna guri intay jabsadeen gabadhii guriga deganay dar ay hatta ilmaha soo gadatay ay ka qaateen way jirtaa kaamam kale ay galeen oo ay maaragtay wax dhibaato u miisan geysaneen laakiin ay erga ka galiyeen way jirtaa marka waxaanan u eersanaynaa inay uun maaragtay dadkan hadda markii ay maqleen hubba la ururinaya daafaha magaalada soo baxayna yihiin xilligan oo lagu guda jiro bisha Ramadaan oo dadka barakacayaasha ee ku nool Muqdisho ee fikir iyo dadaal bay ugu jiraan qaab walba ay ku heli lahaayeen waxyaabo ay ku afuraan ayaa waxa la soo diristay dhibaatadaani oo burcad hubaysan ay kala kulmaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu fadhiyaa inay wax ka qabato arimahani maadaama ay dadkan imaatida ay haysan waxyaabo ay kaga hortagaan dhacdadaani ay kala kulmaan mararka qaar burcad hubaysan ay ku dhaafiyaan wax yar ee nolosha ay ku ceshanayeen halka warkaasi dhageystayaal kala socotaan waa radio kulmi magaalada Muqdisho. ciidamada dowladda Suuriya iyo kuwa ay kaashanayaan ee la dagaalamayaasha ururka Daesh ayaa gaaray xuduudda Ciraaq markii ugu horeysay tan sanadkii 2015 horumarka ay sameeyeen ciidamada Suuriyankana waxay ugu sii dhawaanayaan xarun muhiim ah oo xiisad u dhaxaysa Dimashq oo u dhaxaysa magaalooyinka iyadoo xiisad ay u dhaxayso dowladaha Dimashq iyo Washington. wakaalada wararka ee Suuriya ee Sana oo soo xiganaysa ila military ayaa sheegtay in ciidamadooda oo kaashanaya xulafadooda ay gaareen xuduudda Ciraaq. koox la socota xaaladaha wadanka Suuriya ayaa sheegtay in tobanaan ciidamada dowladda ay gaareen
bar ku taalla xuduudda suuriya ciraaq oo 70 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada altaarif layidhaahdo xawlul guud ahaan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo duhurkan radio kulmiye muqdisho aad kala socoteen qayaar waa naga inta cidda uu dhaafay dib kaga heli karaan barteena radiokulmiye.com oo haddaba toos aad nooga dhageysanaysaan iyo aaladda live streamka dabcan dhegeystayaashana u furan yahay adeega keenan ogaal SMS waxay wararka ugu dambeeyay ku helayaan taleefanadooda dhegeystayaashana jooga magaalooyin ay ka mid yihiin Cadaado Jowhar iyo Gaalkacyo waxay nagala socdaan idaacadaha Asal Hobyo iyo Radio Cadaado Clay FM waxaa nagala socda dhegeystayaashana Mareykanka jooga meel ba joogtaan dhegeystayaal waxaan leenahay maalin wanaagsan